shirkii nabadda ee deegaamada Qorlugud iyo Buuhoodle lagu nabadaynayay ayaa si rasmi ah ugu furmay deegaanka Coodanle ee gobolka Buuhoodle shirkan oo ay ka qayb galeen ergooyin ka badan ilaa 300 oo xubnood oo ay hogaaminayaan isimada nabadda ee labada dhinac waa Qorlugud iyo Buuhoodle gaar ahaan garaadada iyo salaadiinta iyo boqorradu ayaa waxa la dhigay madal guud ahaanba aad loo habeeyay oo la hanaaniyay isla markaana si weyn looga shaqeeyay madashan ayaa muuqaalkeeda dulad waxa uu ahaa mid guud ahaanba soo jiitay bulshooyinkii kala duwanaa ee ka soo qayb galay shirka nabadda iyadoo goobahaasina laga helayay wax kasta oo baahiyaha asaasiga ah u ah nolosha aadamaha shirkan ayaa waxa maalintii shalay si rasmi ah u furay suldaanka guud ee deegaanka gogasha nabadda dhigay Suldaan Cabdilaahi Suldaan Cali shirka sida uu ku furmaya waa sida shirku waxa uu ku saabsan yahay waa gogol nabadeed oo beelaha aan carabka soo mariyay ku saabsan dabadeedna gogashii aanu dhignay dabadeedna labadayadii qoloba isugu nimi nabadgelyo iyo sharafna isugu nimi inta markaanu gudagalno shirka qurux iyo wanaag iyo qiimo aanu ku rajaynayno ilaahayna ka baryayno annana maskaxdayada waxa ka guuxaya wanaag doon iyo inaan waxba naga qabyo noqon baa annagana niyadayada ku jirta hadalkii waxaan kaga baxayaa inta inaan shirka furo shirkuna waa inoo furan yahay geesta kale iyaguna waxa ka hadlay boqor Maxamuud Cali Carab Suldaan Maxamuud Guulad Mere Suldaan Maxamuud Xaaji Xuseen oo dhamaantoodba ku dheeraaday maraaxishii kala duwaneed ee dadaalka nabadda iyo in shirka ay qabsoomo loo soo maray isla markaana dhiiri geliyay adkeynta nabadda dhinaca Buuhoodle ayaa iyaguna waxa ka hadlay garaad Cabdirasaaq garaad Soofe Suldaan Siciid Cismaan garaad Saleebaan Buraale oo dhamaantoodba ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay nabadgelyada iyo dadkan wixii hore uga dhaxayn jiray iyo waxa xilligan looga baahan yahay waxaan idin kula talin lahaa wixii hore liqa wixii hore ilaawa ragii dhintay ninbaa wuxuu yiri rag waxaan isugu fognahay ninka dhintay ragii hore waa dhinteen labadiiba dhiig bal faraha geliseen xaqiiqadu sidaa weeyii nin ku ciil qaba maanta dhiig kale oo halkan fadhiya waxaan oran karaa inuu yahay nin liita oo nacasa inuu yahay baan hubaa waxaan oran lahaa wixii horena qoomameeya waxa dambana u taliya sidoo kale waxa shirkan iyaguna furitaankiisa ka hadlay Sheekh Cali Warsame iyo sidoo kale Sheekh Cabdirashiid Xaaji Samatar Culijooga kuwaas oo khudbad dheer oo dhinaca diinta ah halkaasi ka soo jeediyay iyo sida ay diintu u walaalaysay ummad isku deegaan Caaqil Xasan Dhuuxyare iyo oday Xasan Mataan iyo sidoo kale oday Cali Qamar ayaa waxa iyaguna ku dheeraadeen sooyaalkii nololeed ee dadkani ay wadaagi jireen taariikh ahaan shirkan ayaa ilaa hadda hanaanka uu furmay waxa ka muuqday yididiilo ka duwan shirarkii hore kaasoo aad goobta gudaheeda kaga dheehanayso sida ay dadku u dareynayaan nabadda dadka deegaamadan ku nool ayaa ilaa 5 sanadood ee ugu dambeysay waxa dhex martay colaad naf iyo maal bale taasi oo sababtay in guud ahaanba ay dadkaasi kala irdhoobaan waxaana ay noqotay in geela iyo arigaba la kala jiro isla markaana la iska ilaaliyo gaade iyo waxyaabo kale oo la mid ah maadaama wax naxariis nololeed ahi ay dadkani aanay dhex oolin waxa la filayaa shirkan inay ka soo baxaan qodobo mustaqbalka aayaha dambe ee dadkan anfaca isla markaana hadba sida loo dhaqan geliyo nolosha dadkan ay ku xidhan tahay badbaadintoodu shirkan ayaa waxa uu noqonayaa shirkii ugu ballaarnaa ee guud ahaanba deegaamadaasi ay iskugu yimaadaan kuwaas oo ay kala hogaaminayaan madaxda dhaqanka gaar ahaan boqorrada salaadiinta iyo garaadada labada dhinac waa Cabdisataar Sabri TV-ga qaranka Soomaaliland Burco